I want the truth. We know who is responsible. Khadiija gabadhii u doonanayd Jamaalka Shaqji warihii Sucuudiga u dhashay la dilay ay waxay Mareykanka ka furtay dacwad kana Ameerika Dhaxalsugaha Sucuudiga Maxamed bin Salmaan haweeneydan u dhalatay dalka Turkiga ayaa tuhunsan in Amiir Maxamed bin Salmaan uu amray dilka Khashoggi ka oo lagu xaraajiyay qunsuliyadda Sucuudiga ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga 2018 Dhaxalsugaha Sucuudiga ayaa iska diiday inuu bixiyo amarka lagu dilay wariyaha ka oo ku noolaa Mareykanka laguna yaqaanay inuu noqdiyo qayb ka mid ah siyaasadaha Sucuudiga Khadiija iyo ururdooda xuquuqda aadamaha oo Khashoggi shameeyay ka hor intii aanu dhiman waxay daba socdeen dilkiisa waxaana wehelinay 20 qof oo dhinaca kale ee sharciga ku wanaagsan dacwadda madaniga ayaa laga furay magaalada Washington ee dalka Mareykanka waxaana Khadiija ku andacoonaysaa inay wajahday khasaare maaliyadeed xanuun shakhsiyeed kadib geerida Khashoggi sida ay sheegeen kooxda xuquuqda insaanka u dooday u dhisay Jamaalka Khashoggi una magacaabo dimuqraadiyaddu waa inay hadda ka hirgashaa caalamka Carabta waxa gabi ahaanba gabaabsi noqotay hawshooda dacwadda waxaa lagu sheegay in Khashoggi lagu dilay amar uu bixiyay Maxamed bin Salmaan waxaa sidoo kale la sheegay in ujeedka dilku iska cataa una ahaa in lagu hor istaago isagoo ku sugan dalka Mareykanka inuu dhiirigeliyo in laga hirgeliyo dimuqraadiyadda caalamka Carabta qaranada Khashoggi iyo Khadiija u dooda xuquuqda aadamaha ayaa shir jiray oo dhinaca internetka muuqaal ahaan ugu qabteen waxay ku sheegeen ujeedka dacwaddu ay tahay in maxkamadda Mareykanka ay horseedo in Ameerika Dhaxalsugaha ee dalka Sucuudiga Amiir Maxamed bin Salmaan uu qaato mas'uuliyadda dilkaasi sidoo kalena la helo dukumeentiyada xaqiiqda bannaankana la soo dhigo siday wax u dhaceen bayaan ay soo saartay ayaa ay Khadiija ku sheegtay Jamaal wuxuu aaminsan in gudaha Mareykanka wax kasta ay ka suuri karaan aniga waxaan kalsoonida siinayaa nidaamka cadaaladda madaniga ee Mareykanka si loo xaqiijiyo gaaro wax un cadaalad ah ay tiri muddo 10 sanadood ayaa wariyaha dhintay u dhawaa qoyska boqortooyada Sucuudiga sidoo kalena wuxuu la taliyaa xukuumadda dalkaasi Sucuudiga balse mowqifkiisa ayaa isbedelay sidaas daraadeedna wuxuu go'aansaday inuu dibadda iska joogo waxaana 2017 wareegay dalka Mareykanka waxaana warbixin billaah ku qori jiray wargeyska Washington Post waxaana warbixinadiisa qaar ka mid ah ku dhaleecayn jiray siyaasadaha Ameerika Dhaxalsugaha dalka Sucuudiga maqaalkiisii ugu horeeyay uu ku daabacay wargeyska Washington Post 2017 September ayuu Khashoggi ku sheegay inuu ka cabsi qabo in lagu orala u muuqday in lagu bartilmaameedsanayo mucaaradka arintaasi oo uu hormood ka yahay Ameerku waa markii ugu dambeysay Khashoggi laga arkay isagoo nool waxaana ahayd markii uu galayay qunsuliyadda Sucuudiga 2 bishii Oktoobar sanadka 2018 si uu soo qaado waraaqaha looga baahan yahay ee guurka gabadhii u danoonayd ee Khadiija kadib markii la dhageystay cod laga duubay dad la rumaysan yahay inay ku jireen gudaha qunsuliyadda codkaasi ay soo gudbiyeen sirdoonka Turkiga waxa dhageystay agaans kalamaad oo ay qaramada midoobay si gaar ah ugu xil saartay arintaasi waxaana go'aamisay Khashoggi xishnimo ah loo dilay maalintaasi hase yeeshee baaritaan ay sameeyeen guddiga Sucuudiga arinta u xil saaray waxay sheegeen in dilka lagu fulinayay amar ka soo baxay madaxa kooxda wadaxaajoodka Istanbul u tagtay in Khashoggi ugu wadaxaajoodaan inuu dib ugu laabto Sucuudiga in arintaasi lagu qanayo ama haddii ay fuli weydana xoog lagu celiyo waxa guuldareysay wadaxaajoodka Khashoggi waxa lagu duray daawo soo xisa intaasi kadibna waxa la dilay meydkiisa ayaa la jarjaray waxaana lagu wareejiyay qof deegaanka ah oo gacan ka siinayay wafdiga taas oo banaanka qunsuliyadda uga saaray hadhaaga meydka Cabdirasaaq أحمد عبد الكريم تورك SomNews TV.